Yemen. Dalka Yemen waxa uu ku yaalaa jasiiradda Carabta, waxaana xuduud la leeyahay Sacuudiga iyo Cumaan, halka dhanka badda uu xuduud u kala leeyahay dalal Soomaaliya ay ka mid tahay. Waxa uu dhacaa buucad istiraatiiji ah marka laga hadlayo marin-biyoodka Baabil-Mandab, oo ah halka ay maraan inta badan gaadiidka badda adduunka ee u kala goosha, kuwaasi ay sida shixnadaha ganacsiga ee adduunka. Inkastoo Yemen ay tahay dal taariikh mug weyn leh, haddana waxaynu wax yar aynu ka taabanaynaa taariikhdeeda dhow, taasi oo ku saabsan dhanka siyaasadda iyo nidaamyadii maamul ee dalkaasi ka jiray. Yemen waxa ay u kala qaybsanayday waqooyi iyo koonfur. Waqooyiga waxaa ka talinaysay boqortooyo Ingiriisku uu taageero oo lagu magacaabi jiray boqortooyadii mutawakkiliinta, hase yeeshee markii uu dhintay boqorkii boqortooyadaasi boqor Axmed bin Yaxya sanadii 1962 ayaa waxaa bilowday isku day afgembi oo ay ciidamadu ay sameeyeen, kaasi oo uu ka dhashay dagaal socday muddo sanado badan ah ilaa markii dambeeto ciidamadu ay xukunka ay la wareegeen sanadii 1968 iyagoo ciidamada garab ka helaya dowladdii Masar ee xilligaasi uu hogaaminayay madaxweyne Jamaal Cabdinaasir, waxayna meesha ka saareen boqortooyadii mutawakkiliinta ee Ingiriiska iyo Sacuudigu ay taageerayeen. Waxa ay xilligaasi ay abuureen jamhuuriyadda dalka Yemen, hase yeeshee waxa uu kacdoonkaasi uu ku soo aaday xilligii gumaystihii Ingiriiska ay xorriyad ay siinayeen gobolladii koonfureed ee ugu weyn tahay magaalada Cadan, ayna ahayday magaalada ugu muhiimsan, waxaana loo bixiyay Jamhuuriyadda Carabta Koonfureed. Labada Yemen ayaa dagaalamay sanadii 1972, kaasi oo balse istaagay markii jaamacadda Carabta ay dhexdhexaadin ay kala dhex gashay. Markii la soo gaaray sanadii 1978 waxaa madaxweynaha Yemen loo doortay Cali Cabdalla Saalax oo waqooyiga ka tirsanaa, iyadoo sanad kadib labada dhinac mar kaleeto uu dagaal u ka dhex qarxay, waxaana soo noolaaday dadaaladii midnimada ee labada Yemen. Hase yeeshee sanadii 1986 ayaa waxaa dagaal sokeeye ka dhex qarxay koonfurta Yemen, iyadoo madaxweynihii koonfurta Cali Naasir Maxamed uu baxsaday, xilli markii dambe la soo qabtay loona toogtay arrimo la xiriira qiyaamo qaran oo intii xilka uu hayay uu sameeyey. Sanadii 1990 ayay labada Yemen toos isugu biireen, waxaana madaxweyne ay u wada doorteen Cali Cabdalla Saalax mar kaleeto, halka Cali Saliim oo koonfurta madaxweyne ka ahaa uu noqday madaxweyne ku-xigeenka Yemen. Balse labada nin iskuma aysan sii daahin, waxaana dhacday in sanadii 1994 ay reer koonfureedku ay dareemeen in ay ku dulman yihiin midowgii dhacay, xuquuqdii ay lahaayeen lagu tuntay, sidoo kaleetana taasina ay keentay in Cali Saliim uu ku dhawaaqo gooni u goosad, waxayna tanna ay horseeday mar kale dagaallo kale oo uu ku gacan sarreeyay Cali Cabdalla Saalax, waxaana dalka ka baxsaday Cali Saliim oo ilaa maanta ku nool dalka Cumaan. Markii dowladdii Ciraaq ee Saddam Hussein ay ku duushay dalka Kuwait, kadibna ay quwadaha waaweyn ay dagaal ay la galeen dowladda Ciraaq, dowladda Yemen ee Cali Saalax Cabdalla waxa ay diiday inay taageerto duulaankaasi Ciraaq lagu qaaday, iyadoo markaasi xubin ka ahayd golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaana Yemen ay ka aamustay ilaa 4 jeer oo cod loo qaadayay qaraar lagu meelmarinayay in Ciraaq lagu duulo. Tallaabadaasi waxay ka careysiisay Mareykanka iyo sidoo kaleeto Sacuudiga, iyadoo uu Sacuudigu dalkiisa ka soo eriyay ilaa 800,000 oo reer Yemeniyiin ah. Sacuudiga xilligaasina ku noolaa gudaha dalka Sacuudiga. doorasho dhacday sanadii 1999 ayaa markii koobaad xilka madaxweynenimada loogu doortay Cali Cabdalla Saalax, isagoo ku guuleystay 96.2% codadkii la bixiyay, waxaana la tartamayay Najiib Qaxdaan al-Shacaabi oo aabihiis Qaxdaan al-Shacaabi uu mar ahaan jiray madaxweynaha Yemen Koonfureed. Bishii Oktoobar sanadii 2017 askari oo ka tirsan ciidamada badda ee Mareykanka ee fadhigoodu uu yahay Cadan ayaa dhintay kadib markii dooni waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay lagu weeraray markab dagaal oo dekedda taagnaa. Arrinkaasi ayaa waxay keentay in dowladda Yemen iyo Mareykanka ay wada galaan heshiis ah in ay ka wada qayb qaataan dagaalka loo yaqaano argagixisada darirka, iyadoo ciidamada ay dagaal kula jiraan dagaalyahanada Al-Qaacida oo Yemen ka dilaacay. ayaa waxaa gobolka Sacda
sannadii 2004 looga dhawaaqay jabhad salka ku haysata diinta Shiicada, taasi oo uu hogaaminayay Xuseen Bidrutiin al-Xuuti, kaasi oo ka soo horjeeday dowladda Yemen. Dowladda Yemen ayaa jabhadahani cusub ee Xuutiyiinta ku eedeysay in ay doonayaan in ay afgambiyaan dowladda, waxaana lagu qaaday dagaal la socday 8 sano. Haddaba markii la soo gaaray sannadii 2011, xilligaasi oo ay dunida Carabta ay ka bilowdeen kacdoonkii dadweynaha Yemen, sidoo kaleeto waxaa bilowday kacdoonkii ugu dambeyn suuro geliyey in xukunka laga tuuro Cali Cabdalla Saalax, waxaana xilligaasi xilkii la wareegay ku-xigeenkiisii Cabdulrabow al-Mansuur al-Haadi. Xukuumaddii Haadi ayaa dhexda uga dhacday kooxo badan oo iska soo horjeeda dhexdooda. Militariga oo dhinaca uu hogaamiyo wiilka madaxweynihii horeeto ee Axmed Cali Cabdalla Saalax, Al-Qaacida iyo sidoo kale Xuutiyiinta oo ay wehelinayaan jabhado ka aasaasan koonfurta Yemen, ayay xukuumadda ka shaqayn weysay muddo dheer. Ugu dambeyntii, jabhadda Shiicada oo garab ka helaysa ciidamada militariga ee uu wiilka madaxweynaha u taliyo ayaa bishii Sebteembar sannadii 2014 galay caasimadda Sanca, iyagoo markii dambena madaxweynihii iyo sidoo kaleetaba dowladdii dalka Yemen afgambiyey, waxaana sidaasi ku soo idlaaday dowladdii Yemen. Yemen haatan waa dal ay isku haystaan quwado badan oo kala ah kooxo argagixiso iyo sidoo kale jabhado ka soo horjeedo dowladda.